نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام dhacda aan looga ogolaan wax badan oo kamida inuu arko aan loona ogolaan wax badan oo kamida inuu ka yiraahdo inooga waramo ayaan doonayaa inaan idinka waramo oo aan ka dhex tuso oo ka dhex baro weynida rabbigaaga ilaahay ninkii cadamadiisa garanaya uga baqda baqashadii uu ilaahay xaq u lahaa nabi wuxuu mid kamid ah xamalatu arshiga ayaan idin sifaynayaa buuri luquntiisa iyo cunihiisu wuxuu sidaa uga fooraraa kursiga iyo arshiga ilaahay lugtiisa ugu hoosaysaana waxay taagan tahay baa rasuulku yiri todobada dhulta ugu hoosaysa ayuu ku taagan yahay weynida uu leeyahay hadaad eegto malagaasi baa rasuulku leeyahay arjawda dhagtiisa iyo garabkiisa waa intayna yar taakadu gaarayso daabad ugu dheeraysaa waxay u soconaysaa masiira 700 sanadood ah qofka bini'aadamka in cimrigiisa 3 sano u gaarin ba ayaa malaga baaxadda inta lag leh samada koobaad hada dhaafta samada kala 200 sanadood bay jirtaa samaba samo 7 samo marka la gaaro samada ugu sareysa 500 sanadood bay arshiga u jirtaa malaga baaxadda inta lag ba wuxuu ku celcelinayaa oo uu leeyahay subhanaka ma a'damak ilaahay waxmaan baad ka nasahantahay maxaa ka weynida ilaahay wuu jawaab celinayaa malaga wuxuu leeyahay inta muu garan ka been igu dhaarta magaca ilaahay baa wuxuu qofka bini'aadamkii u adeegsanayaa mawaaqif yar oo aan macna saas lahayn jaajar yar uu qarsaday qof kale ka qarsaday ama haaf baasto cunaa qof si dhigto maanta wuxuu ugu wareerinaya wallahi iga tahay saddex ilaahay loogu dhaarto magaca ilaahay wuxuu ka dhiganayaa wasiilad lagu raali geliyo qof bini'aadam oo tuhmay qofkan ku darso ilaahay todobada malag hal mid kamida 8 malaga arshiga sida mid kamida nabigu inoo sifeeyay todobada kale lama garanayo weynidooda iyo baaxadoodu intay laagtahay hadaba ku darso ilaaha xaq ah subhanahu wa ta'ala kursigan sidin malaa'igtaasan sidin dhul baan sidin cirbaan sidin dhamaantood inta ka sheekeynaya malag la ee dhul la ee cir la ee kursi leh waxay ku taagan yihiin oo ilaahay ku sida cadamadiisa iyo ludfigiisa iyo raxmadiisa iyagan jireenba ilaahay wuxuu joogay iyadoo waxba jirin oo waxba abuurnayn ayuu kaligii joogay ilaahay hadaad ugu tukato labadii waalido tukanayaan ka arkay ama masaajidka laga eedaamay ama ilaahay lagu dhulkiyo cir ku abuuray waxaan ka noqonaysaa inna wajadna alayha abaana cibaadada qofka bini'aadamka looga baahan yahay awwal cibaada aw ma'rifatul abd li rabbi adoonku inuu garto uu soo helo rabbigiisa ugu cibaadeysta cibaadadii rabbigii ka mudnaa ilaahay uu rubu ku galiyay xaq ilaahay kugu leeyahay wax kale marka laga tago adigoon jirin baa ilaahay ku abuuray oon xasuusan ba wax xalaaliye wax ahayd asa ilaahay uurka ku galiyo 3 dabaqadood buu ka soo sareysay oo hooyada markay basal karinaysa ama wax karinayso urti kuma soo gaarayso ilmaha yar markuu dhashana sintaas boodboodo faruhu kala raacaya ilaahay cidhiidhiga darkaas soo mariyo muu kala reebin malaa'ig buu diray ludfigiisa iyo raxmadiisa ku soo mariyay markii uu dhashay baa isagoo dalqayo socodka bana ilaahay jabitaan ka ilaaliyay dib ka ilaaliyay madaxu 10 jeer dhulka ku dhufan yahay inuu dhiig kaga furmaa ilaahay ka ilaaliyay 15 sanadood baa ilaahay siiyay biyahayga cab cuntadayda cun raaxayso seexo soo toos waxba laga ma qorayo markii uu qaan gaadhay baa ilaahay wari cibaadayso rabbiga intaas oo dhan ku soo mariyay maraaxisha khalqi bacda khalqi ilaahay wuxuu ku leeyahay hal mar kaba kaalag masaajidka inaad gasho adigoo kabaha in laga xada ka fikiraya hadaad ku cibaadaysato tiirka intaad ku fadhiisato ka soo galiyay la ka baxaysa indhaha ula raacdo waxa kaaga fiican adigoo kartoonkeeda hoosti dhigto ilaahay qushuucdii iyo qalbigaaga xaadira ilaahay la hor istaaga adoonka baa ilaahay markuu adoonku salaada xidho ilaahay qaabilay ilaahay wajigiisu adoonka soo qaabilsiyaa wajigiis hadduu adoonkaasi mashquulo ama wax kale shay yar uu ku baxay ilaahay wuxuu yiraahdaa ma waxiga wanaagsan wajigiisa ilaahay ka sii jeediyaa miyuga waa khayru minni baa ilaahay yiraahdaa subhanahu wa ta'ala qof garanaya cadamada ilaahay bini'aadankan qofka bini'aadanka taqwadu haday dhacsantahay waxba ma arko koonka gabigiisa hadaad eegtay inuu kula hadlayo aad malaynaysaa habeenkii markaad seexanayso hurdada jiifsa istiraabay ilaahay kula hadlay adoonkaygiyo hurdada ana abuuray macaankeeda aniga abuuray inaad ku raaxaysato adigaan ku abuuray lulada dareemaysa lafteeda ana abuuray adiga ana ku abuuray ma hal saacad baad soo yar kici kari weyd cuntada markaad cunayso adoonkaygiyo cuntada ana abuuray ama teedka ana ku abuuray
uduga iyo sankaad ku urinaysa anaa ku abuuray cunitaankaad cunaysa anaa ku yasiray ma markaad cuntaadii oran kar laaday hal mar alxamdulillaah rabbil caalamiin wadii mahad celin kar laaday adoonkaygiiu dambi baad gashaa waad caasidaa waan ku dulqaataa waan ku kaadiyaa waan ku sugaa waan ku yeedhaa raxmadayda ka quusanina war toobadii celiya waan idinka aqbaliye ma hal mar baad soo noqon kari weyday oo ilaahay u dambigayga dhaafiyo oran kari weyday kawnka gabigiisa haddaad eegto war lugaan kuu sameeyey gacmaan kuu sameeyey maalin oo dhan iska socaan kuuri soo shaqaysaan kuuri ma mar kaliya masaajidka kaaga dhawaaqo oon ku dhaha hawliha adduunka kaale ka yarnasta ayaad ii iman kari weyday anigoo boqorkii boqorada ah ilaaha xaqaa inugu leh maanta qof bini aadan oo mansab yar haysta ama mas'uul hadaad istiraahdo la kulan dib iyo waxaad kala kulmaysaa dhibaato aad u weyn daydaygiisa iyo dabacararkiisa iyo laakiin ilaahay waxa ka xigta la kulankiisa gabigiisaba si jaayada inta dhiganaysa dad soo fadhiisanayso uu mashquulsay laguma oranayo hawl buu hayaa laguma oranayo kuma maqlayo laguma oranayo waad ku raagtay laguma oranayo hadaba iska sii socodin badan baad fadhiday cid ku oran mayso in alliya intii aad doonto gacmaha marka tagtaad la qaadan kartaa wax kasta waad u sheegan kartaa wax kasta waad oran kartaa haddana rabbiga cadiimkii hawsha uu hayo bini aadanka sidkiisii ka warqabkiisii sidkii quraanjada kii maroodiga kii ayga kii yaxaaska kii yeeyga kuwii badda ku jiriya kalluunka ilaaha mid kasta og meesha uu ka soo tooso iyo meesha uu arsaaq doonto ee halkiisa ku arsaaqay oo naxariista war rabbiga inagu maxaynu nahay adduunkan waxa kaliya inaad ilaahay isku soo taagtaa ama aad ilaahayba maanta wax ka sheegtaa ama aad life ka caydo waa jahli ama meel kale baad ka caydo way aqoonti dhabta hayda rabbiga baanad u lahayn asxaabta iyo dadkii hore qaar baa ilaahay ka baqda markii lagu dhaaway ooyi jireen ama koomi gali jireen sababtoo ah waa maxay eriga cid walba lagu dhaaway ilaahay ka baqo 10 jeer maalintii lagu soo qoraya laakiin cadamadii buu garanaya qofkan kale inagu maxaynu nahay waxba minni waxa kaliya nahay adooma ilaahay waxba malihin oo ilaahay baa ina leh inna lillaah qofku maanta adiga caafimaadkaaga tihiino waxa kaliya raadinaysaan waa adduunyo adiga caafimaadkaaga wada socda بري تولنا أديك يلعقتها واحد ودرادين دون تنا عافمات ساعة بنا عافمات بنشرين لعق بنشرين وحيد سير دقتي مركز لجوجيو أي درادين دون تعمل ونكسين يلا برجع عوض لجوسو تكده أدون كون اللي يرتحيانه وحبقي يمكيدية معنيه دوبال هاي واحد كوجر نسا قف كده ما يحوج هاي السعودية الدلالية هاللية كفتمية نختار مركز كوب وقطع في كيس على بعض جامعة ولا بين هنا لكن توم بكجت شرتال كنا توم بكجت شرتال تيتريرنا هذا كقاضيو جيبي سبوا أنت بني آدم حتى أنا كبير يسقط قاد إلهي ديد وإلهي هينون نحرسته أدون كواليد هو جبجبه ورا ناس أسترنو قفك بنادم كقلتما إنه أسترنو ينا فذا حذينين أدون كواحد كهرا حسوستي سوى ناكسن إلهينا إنه عبادي سنة عبادتي إلهينا جمودنا رمضان بس ردو تطبضنا وباهم باشرة oo qaraabo leh oo masaakiin leh oo cid walba leh qof walba adigoon qofna bahdilin qoysna bahdilin waxna ka duubin ilaahay dartii u caawi ilaahayna hayno wada naxariisto wa aakhiru dacwana alxamdulillahi rabbil caalamiin